السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامي دمان أصحابتا cashirkeena hore saynu kusoo baranay wuxuu ahaa sida loo active gareeyo Windowska cashirkan waxaynu ku baran doonaa sida loo active gareeyo MS Office nooc kasto ahaado 7 10 13 16 Office kasta sida loo active gareyn lahayd marka hore cashirka hore kusoo sharaxnay qaabka software-ka adeegsanayno software-ka waxa ahaa KMS baa la oran jiray Autonet already kan hadda inoogu jira mar rabna inaynu soo dhigno gareysano kan inoogu jira ayaynu soo furanaynaa marka KMS Autonet kaaga soo furanaysa haday ku cusub yahay ama casharka ku horeeyay casharka hore soo fiirso ama halkan ka soo dhigno gareyso website-ka kmsauto.information.info website-ka ku qoran tahay ka soo degsanaysaa software-ka dan kugu jirin already hadda kugu jirana software-kaaga soo furanaysaa hadda tanaga uu noo soo kacay dabeeto waxaan ku dhufanaynaa marka noo soo wada dhameystirmo activation ayaan ku dhufanaynaa halkeen awal Windows ka dhufanaynay ayaan hadda activate Office ku dhufanaynaa dabeeto run ayuu bilaabayaa ama shaqadii uu bilaabayaa Office-ka marba hadba Office-ka kugu jira ayuu ku active gareynayaa yes marka hadeerto already waa inoo active gareeyay Office-keeni haddaynu halkan ku dhufano aan soo furano waad aragtaan waxa activate ah iyo waxaas markuu weydiinayo marka caadi buu ku shaqeynayaa hadda kaliya jira waa 13 caadi buu ku shaqeynayaa wax activation iyo waxaas ma weydiin doono marka activation-ka Office kasta loo sameeyaa kii hore Windows-kana waa sidii hore loo sameeyay video-ga hore hadda Windows u baahan video ka hore soo daawo marka cashirkeena maanta intaas ku saabsanaa marka waa in salaamay dhamaantiin mar labaad iyo mar saddexaadba